الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamaya marka hore dhamaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogaan. magacaygu waa Mataan Maxamuud Umar, xogayeenka warbaahinta xisbiga waddanka UK. waxaan jeclahay maanta inaan laba eray amba laba qodob ka idhaahdo hadalkuna waa iska tarmay haddii aan dadiyana waa soo koobi doona haddii Allah awood loo ogolaado. marka hore waxaan duco iyo hambaliyo aan u dirayaa guurtida cilmi-diinka ah ee ka kooban dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Somaliland ee isku xilqaamay soo afjaridda colaadda ka dhaxaysa labada beelood ee magaalada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag. waxaan Ilaahay uga baryayaa hawshaas ay galeen inuu Ilaahay u fududeeyo, ilaahayna la garab galo, iyaguna sidii Ilaahay ku ogyahay ee cadaaladda iyo xaqa ku sugan ee sharcigu tilmaamayo inay arrintaas uga garnaqaan, taariikhduna ay qori doonto wanaagga iyo sharafta ay ummadda ay u qabtaan. taada ka gudbo waxaan maqlay dhawaan ergo garowe tagtay oo ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland oo salaadiin iyo cuqaal iyo baayacisha isku jirta. waxa weeyaan madaxweyne kasta oo yimaada xisbiga kulmiye ka soo baxa Maxamed Siiraaye iyo Muuse Kaahin iyo Musabix labada waxa filaya dariiqii isku midka xaaladooda inay mareen markii ay fadhiistay markii uu horeysayba ay taladii markii hore oo talaabadii markii hore oo qaaday Maxamed Siiraaye inuu maantana qaaday ninka lagu yiraahdo Musabix madaxweyne Musabix. taasoo waxaan garan waayay Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen ina kala abtigo ahayd sharaftii karaamadana iga mudan labada madaxweyne oo mid waliba markii uu kursiga ku fadhiistay uu diray Puntland inuu soo nabadeeyo nabad ka raadiyo sababta uu faal ugu qabtay Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen inay halkaas u diraan waa arrinta la isweydiinayo. waxaan jecelahay Maxamuud Xaaji Xuseen Maxamuud inuu Ilaahay arrintaas ku garab galo maadaama uu noqday wada xidiga mar walba loo diro halkaas. waxaan isweydiin leh madaxweynayaashu arrinka naga dhexeeya Puntland ma aha arrin beero ay sayaan, waa arrin ay sayaan maamulka Puntland iyo dowladda Somaliland ayaa sayaan maadaama ay meeshii colaad tahay aanay beer ahayn dee nidaam dowladeed ay tahay dee nidaamka dowladeed in loo soo maro wadadeedii la maro ayaa horta ku habboonay. Musabixina dhowr jeer wuxuu ku celceliyay lama hadlayna Cabdiweli waxaan la hadlayna Farmaajo. markaa waxa isbedelay Farmaajo wuu soo diiday arrinta ku soo celisay maanta inuu u diro ergooda salaadiinta ayaa isweydiin leh. waxaa kaloo aad moodaa xukuumaddu markii ay doontay iyadu xagga doontay inay u dhaqaaqi karto. waxaynu ogsoonahay shirka ka socda Brussels ee loo qabanayo maamul goboleedyada Soomaaliya inuu ka qayb galay Faysal Cali Waraabe. Faysal Cali Waraabe oo ku naqaanay inuu ahaa nin xaq jira. waxaanu ka haynaa ninka laga maqlo Soomaaliya carabka high school Faysal halku ka waalay ninkii ereyga lahaa maanta Soomaaliya ayuu la fadhiyaa. Somaliland way diiday la fadhiisato maanta keligiiba u tagay balka waraba Cabdiraxmaan Cali u tagay dareen tele ee maanta bulshada Somaliland iyo xisbiga kulmiye ay ka muujin lahaayeen maxay oran lahaayeen maxay ku dhawaaqi lahaayeen. Faysal Cali Waraabe cid lama hadlayso xisbiga waddan oo aan talaabo ma qaadan Soomaaliya ba aan aqoonna propaganda iyo waxa la fidinaya waxa aan jirin kii ku dhaqaaqay Soomaaliya maanta la fadhiisay waliba maamul goboleed ka dhigay Jamhuuriyadda Somaliland waxaan moodaa in aad iyo aad loo buubuuninayo oo lagu raacsan yahay. waxaan moodaa Saacad Cali Shiro saaka ka hadlayay inaanu fashilmin arrimihii dibadda inaanu fashilmin fashilaadda ugu horeysa labada qodob ee soo qaatay ergada garowe loo diray iyo Faysal oo tagay Brussels ayaa fashilaad ugu horeysa amba tusaale wanaagsan ku ah ayaan oran lahaa wasiir Saacad. waxaan oran lahaa xukuumadda Somaliland sidii ay soo afjari lahayd colaadaas haday doonayso Puntland inay sida wadadeeda ay marto ee ay ka dayso gujeynta iyo dariiqa kalba ay marayso. aad ugu mahadnaqayaa kamaramaan Cabdi Dheere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.